maanta waanu kormeer aanu shaqo ku tagnay anigoo ugu wehelinaya wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya annagoo soo indhaynayna dirdirgelinta iyo xaaladaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waxaanu kormeer ku tagnay dekedda oo aanu halka kula kulannay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo agaasimayaasha iyo dhammaan shaqaalaha ay wasaaraddaas oo aanu si fiican uga wada hadalnay qaabkii ciidamada iyo maaragtay wada shaqaynta aanu u dirdirgelin lahayn runtiina waxay noogu soo dhamaatay guul iyo farxad waxaan rajeyn doonaa insha Allah inay ciidamadii badda ama difaaci xeebaha Soomaaliya ay insha Allah si buuxda ay u shaqayn doonaan ummaduna ay ku farxi doonto hadii Allah uu dalaymo sida ay dalkooda iyo ummadooda ay ugu shaqayn doonaan aysan noqon doonin badda Soomaaliya mid iska furan oo cid walba ay soo gasho wixii xilligan ka dambeeya lana gaaray xilligii ay Soomaaliya ay ka faa'iideysan lahayd kheyraadkeeda iyo waxyaalaha ku jira ayna ilaashan doonto meelaha ay iyadu ay leedahay xuduudaha marka aad baan ugu faraxsanayn kulay wixii kale oo warbixinaa ama sidoo waxa kormeerkaygaasi waxa ka sii hadli doona wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya marka waxaan leeyahay maanta kormeerkaygu intaas waxa dirdirgelinta ciidamada iyo sidii wasaaradda iyo ciidanka badda iyo difaaca xeebuhu ay shaqayntooda iyo si xoojin lahaayeen aad baan ugu faraxsanahay guul fiican bayna noogu soo dhamaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh